Madal ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxgaradka, cuqaasha, dhalinyarada iyo odayaasha deegaanka Balebusle maanta oo ay taariikhdu tahay 9-ka Diseembar 2020 ayaa dib loogu doortay maamulka beesha Balebusle. Gudoomiye Cawil Beere Samatar oo 2 muddo-xileed oo hore ahaa gudoomiyaha beesha Balebusle, sidoo kalena waxaa la soo dhisay maamulka oo ka kooban 9 xubnood. Ganacsatada, cuqaasha, odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Balebusle ayaa baaq u diray xukuumadda Puntland, maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Jariban. Iyagoo fariintooda marinaya warbaahinta ayay sheegeen in si wadajir ah loola shaqeeyo maamulka deegaanka Balebusle, waxaana soo dhoweeyay bulshada deegaanka Balebusle oo ay odayaashu matalaan ganacsatada iyo dhalinyarada. Kadib kulan saacado qaatay oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd, waxaa ajandayaashii shirka ka soo baxay bulshada iyo warbaahinta ka hor akhriyay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Balebusle. Maamulkii beesha Balebusle oo Cawil ka ahaa gudoomiye in Cawil ay codsatay in 2 sano insha Allahu qabiilada ay ka codsadeen inuu xilkaas loo ziyaadiyo, qolku ziyaadiyo hawlo jira aawadood oo yani iska bargo'an tolkuna uu ka aqbalay beesha Balebusle jooga jamaacan ahaan iyo deegaanka uu ka aqbalay. Tolka markaan leeyahay waxaan u jeedaa dadka Balebusle deegaankiisa ah oo dhan baan u jeedaa, jifo uma jeedo. Waa laga aqbalay, waana la isla qaatay. maantana waa gabagabadii lagu saarayay oo lagu bixinayo guddigii la shaqayn lahaa gudoomiyaha. dhammaan intaas in la isla qaato, waana la isla qaatay. xubnihii guddiga la shaqayn lahaana waa la magacaabay, 9 asagaa ku ah, 8 baa la magacaabay kale oo beesha Balebusle qaybaheeda ka tirsan oo gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye iyo khasnaji leh sidii maamul lagu arki jiray. taasaan haddaanu reer Balebusle isla qaadanay, ku faataxaysanay, ku ducaysanay. maanta oo ayaantu ay tahay 4 taariikhduna ay tahay 9kii bisha Diseembar, bisha 12 Diseembar 9keedii ay tahay. sidaasaan u gaarsiinaynaa degmada Jariban, gobolka Mudug, odayaasha isimka aan gaarsiinaynaa insha Allahu tacaala intii arrintaas ay khusayso dhan, ama maamul ahaan iyo dowladnimo u khusayso, ama ay u khusayso ismaamul iyo degmo iyo gobol u khusayso. sidaasaanu iclaaminaynaa, ogeysiinaynaa insha Allahu. waxaanu rabnaa, aan codsanaynaa in la kula shaqeeyo insha Allah, degmada iyo gobolkuba ay nagula shaqeeyaan. saasaanu codsanaynaa. saasaynu ku salaamay. hadda hawshii waa dhammaatay. deegaanka Balebusle wuxuu isku raacay mar labaad in loo doortay Cawil Beereed iyo xubnihiisiiba iyo odayaashiiba inay sidaa ku howlgalaan. waxaanu ogeysiinaynaa degmada, gobolka, isimada, Allah hadduu nabadoonnada iyo saraakiisha sidaas inuu ku howlgalay. khilaafkeedii baxay, gacmaha la isku qabsaday. anigu waxaan qaybta ganacsatada waa soo dhaweynaynaa, waana kula shaqaynaynaa. oday ahaanna waa ka tirsannahay. intaasna sidaasaan ku ogeysiinaynaa, mar labaad iyo mar saddexaadna kula shaqaynaynaa, kana codsanaynaa intaas hadda aan soo magacawnay inay garab istaagaan, lana shaqeeyaan. hadday iyo Puntlandba, hadday nabadgelyo tahay iyo hadday tahay isimo iyo hadday nabadoonno tahay iyo hadday waxgarad tahay. sidaasaan codsanaynaa, kuna dhammaystirnay, degmadana ku ogeysiinaynaa, naguna daawanaysaan haddii alla idmo. xubnihiina sidaasay aanan ku dhammaystirnay. oo hor u dhacay in mar labaad la doortay Cawil Warsamo Beere, ayada oo hadda deegaanka haddee odayaashiisii iyo waxgaradkiisii iyo culimadiisiiba fadhiyaan. waxaan rabnaa in sida arrintaas ay qolo walba xubnaheedii waa lala yimid. deegaamada macnaha ilaa degmaynu ka tirsannahay, degmadii iyo gobolkii iyo kulli waxaan doonaynaa in ay nala qaataan, nalala shaqeeyo degmadii iyo gobolkii labaduba. gudoomiye Cawil Beereed oo Balebusle, gudoomiye hore oo soo shaqeeyay, oo hore u soo shaqeeyay 2 sano soo shaqeeyay. waxaan u sheegaynaa degmada Jariban, gobolka Mudug, Puntland, isimada Cumar Maxamuud iyo Majeerteen
waxaan u sheegaynaa ogeysiinaynaa in loogu daray dadweynaha reer Balbusle beesha reer Balbusle dadweynaheedu markii uu in badan ka shiray arrinta falaaqada dheerna uu ku sameeyay waxaan u sheegaynaa 2 sano oo kale in loogu daray gudoomiye in loo doortay Cawil Beereed gudoomiye Cawil Beereed sababa jira awgood iyo arrimo badan oo qabiya lambar kow ay ka tahay xagga nabadgelyada oo uu kan adag kaga jiray oo uu ka waday nabadgelyada annaga iyo haddii la ku walaananka walaalaha aan dariska nahay uu ka waday ololo dheer oo xagga nabadgelyada ayadoo looga jeeday in hawlo badan oo qabiya oo ay ka mid tahay horumarinta deegaanka hawlo badan oo ay ka mid tahay shaqooyin socday oo ceelal la qodayo oo socday oo shaqadooda socotay ay ka mid tahay horumarinta deegaanka iyo beesha arrimahaas awgood oo arrintaas haddii la ku yahay in badan haddii la ku yahay laga shiray lagana sheekaystay gobol badan iyo fadhi badan oo laga gaaray oo laga gaaray waxa arrintaas ay ku gabagowday Cawil Beereed mar labaad in loo doonto gudoomiyaha beesha Balbusle cid kasta oo ay qusayso degmada Jiriban gobolka Puntland intii wada shaqeynay ay naga dhaxayso waxaan ogeysiinaynaa inaan 2 sano oo dambe Cawil Beereed aan gudoomiye beesha Balbusle ay u dooratay intaas aan ogeysiinaynaa xubnihii labaad gudoomiye waa la soo magacaabay xubnihii la shaqeyn lahaayna la magacaabay magaca Ilaahay ku bilaabay shirka iyo xalfadda maanta meesha laga qabtay oo ay ku qabatay beesha Balbusle iyagoo ku dooranaya gudoomiye Cawil warsame oo awal ahaan jiray gudoomiye hore 2 sano ugu daray iyadoo arrintaas si buuxda oo loo dhayahay u dhamaato oo dhacday xubnaheedina lagu soo magacaabay intii gudoomiye ku xigeen leedahay intii qasas tahay intii xog hayn tahayba si wanaagsan loogu qanacsan yahay haddana macnaha ay ku xirmadii gobolka iyo deegaanada kaleba waxaan u sheegnaa in arrintaas sidaas u dhamaatay maamulka Balbusle ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka shaqeynayay nabadda bariga gobolka Mudug oo dhawaanahanba ahayd mid la isku halayn karo sidoo kalena horumarinta deegaanka sida toonbaleenka iyo bilicda deegaanka Samafale Cabdi raadiyaha iyo TV-ga warbaahinta wadaagsin magaalada Balbusle.